السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خيراتكم حيران channelkeena Axmed Daaruqni ku soo dhawaada qaybtii shanaad ee maxad ka taqaanaa dhul. Muuqaalkii hore waxaan uga soo hadalnay saddexda qaaradood ee ugu weyn adduunka. Haddana waxaynu ku hadli doonaa macluumaad ku saabsan afarta qaaradood ee ugu yar adduunka. Waxa kaalinta afraad ku jira kaalinta afraad ku jira qaaradda Koonfur America. Waxa ku yaala qaaradan 12 wadan, waxaana sidoo kale mara labada badweyn ee Atlantic iyo Pacific. Sidoo kale waxa ku yaala webiga ugu dhulka weyn caalamka ee lagu magacaabo Amazon. Qaaradan waxa ku nool dad gaaraya 422.5 milyan. qaaradan ayaa ku fadhida dhul gaaraya 17,819,000 square kilometer. Waxa ugu dhul weyn qaaradan wadanka Brazil, kaasoo ku fadhiya dhul gaaraya 3.288 milyan. kaalinta shanaad waxa ku jirta qaaradda Antarctica. qaaradan kuma yaalaan wax dal ah, waa dhul bannaan oo uu barafku ka dhow. waxa ku nool dad gaaraya 4,000 kuwaas oo ah saynis yahano cilmi baaris u jooga, waxayna halkaas joogaan xilliga xagaaga ama samarka. qaaradan waxa la soo ogaaday sanadii 1773 waxaana soo ogaaday ninkii lagu yeeri jiray Captain Cook. qaaradan ayaa ku taala cirifka koonfureed ee dhulka, waxaana ku hareeraysan badweynta koonfureed. kaalinta lixaad waxa ku jira qaaradda Yurub. qaaradan ayaa ku fadhida dhul gaaraya 10,180,000 square kilometer, waxaana ku yaala 50 wadan oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 743.1 milyan, taasoo ka dhigan boqolkiiba 10 dadka caalamka. sidoo kale waxaa jira wadamo uu dhulkooda u dhaxeeyo Asia iyo Yurub, taasoo ka dhigtay qaar ka mid ah dhulkooda Yurub ama Asia. waxaana ugu caansan dalka Russia oo lagu tiriyo qaaradda Yurub, balse dhulkeeda inta ugu badan uu ku yaalo qaaradda Asia. sidoo kale waxa kamid ah wadamada Georgia, Turkey iyo kuwa kale. qaaradan waxa ka qarxay laba dagaal oo saameeyay caalamka intiisa kale, kuwaas oo loogu magac daray dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka. qaaradan waxa ku yaala wadanka ugu dhulka weyn oo ah Russia. qaaradda toddobaad ee ugu dhulka yar waxa lagu magacaabaa Australia. qaaradan waxa ku yaala 3 wadan oo lagu kala magacaabo Australia, New Zealand iyo Papua New Guinea. waxaa la sheegay inay ku nool yihiin in ka badan 36 milyan oo qof. dhulkan waxaa la soo ogaaday taariikhdu markay ahayd 1642, waxaana soo ogaaday ninkii lagu yeeri jiray Captain James Cook. dhulkan waa jasiirado meel gaar ah ku yaala, taasoo ka dhigan haddii ay caawimad u baahdaan inay ka qaadanayso waqti inta la soo gaarayo. wadanka ugu dhowna waxa uu jiraa 3,455 kilomitir. waxaan filayaa inaan waxaan kaga faa'iideeyay mawduucani maxad ka taqaanaa dhulka qaybtiisii shanaad. inta ku kulmi doona muuqaalka xiga waxaa idinkaga tegay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.